laandheero bannaan ku dhacay maadaama aan naqday oo bannaankan ku soo dhacay cilada ummaddan aan ku soo dhaweynayo saas darteeda nabadii nolol muxuu ahaa waa ii quuri weysay macnaheed muddo bil ah oo uu xirnaa isbeddel jismi ayaa ku dhacay muuse muudi cabdulle raamoole oo caan ku ah taliya laandheere muuqaal ka duwan kii hore ayuu yeeshay kadib markii uu iska jaray timo dhaadheer oo dadka baqdin gelin jiray waxa uu sheegtaa inuu yahay gudoomiyaha aagga deegaan dalxiiseedka baydhaxan oo 17 kiiloomitir qiyaas ahaan dhanka koonfur kaga beegan magaalada caasimadda ee muqdisho 7 abriil ayaa la xiray waxaase dib uu helay xorriyadiisa 7 bishii May waxa uu madcelinayaa dadkii ka qayb qaatay siideentiisa iyo taageerayaal badan oo uu sheegay in bartiisa Facebook uu ku leeyahay shacabka waa shacabkii waa kuwa taageeray oo soo daayay oo mar walba garabkayga taagan waxaana hambalyo halkan uga diray oo qaasa shacabka aniga muxuu ahay oo labada dhinac iga taagan mar walba waa aabe 4 caruur ah leh waxay u kala joogaan magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamo uu hogaamiyo ayaa shaada sare ka ilaaliya deegaankan wax talisa kama tirsana dadka halkan u soo dalxiistay qaarkood ayaa wax u gartaa amniga guud ee deegaankan aniga uu hoos yimaada ciidanka meeshan joogo deegaankan joogan waa ciidan aniga aan aqaano hal oo koow iyo laba aan dhigi karo oo urur gaaray waa ciidan maxamuud deegaan waa shaqo kuma laha dawladda xataa shaqo kuma laha ciidanka sanad ka hor dadku waxay u dalxiistay jireen xeebta Jasiira balse 2019 ayuu ii sheegay in uu u jeexay dhabooyin la maro dadkuna uu yeeray inuu u dalxiistagaan maanta waxay kamid tahay meelaha dhalintu ay aad u xiiseyso in ay ku dalxiisaan sanad hadda la soo dhaafayo 2019 aan muxuu ahaa dalxiiskan dib u soo nooleeyay waxaan ugu talagalay dalxiiskan aan u furay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay muxuu ahaa gobolada ay ka joogto inay halkan u soo dalxiistagaan ay ku raaxaystaan ay tahay halkan ciidooda hooyo aanan loo kala sinnin dadka dhan ciidan ay wada sameyn yihiin oo qof walba oo sidoo doon ugu raaxaysan karo oo uu baashaali karo oo mari karo qofku rabo oo la hadli karo qof oo cunsuriyad gaar ah oo lagu sameeyo halkan deegaankan aad arkayso wareegsan gudihiisa horta ma jirto amniga deegaankan ka jira ayaa suuro geliyay in dhalinyarada degmooyin fogfog ay u yimaadaan deegaankan waxaase jira in dhalinyarada halkan yimaada ay aad u daneeyaan in ay sawiro la galaan maxay tahay sababta awal iyo hadda kaafi kala dheeriyeed awal adigu qofkii soo ahayd markaas tin dheero lahay qofka hadoo ka hormaad waa ka cabsayso aad waxaas dhahay ninkaan amal wax kale laga aaminaa laakiin ninka waa in aad iska fiican meesha xoogaa hadda amni asi qolo wata meesha joogaan hadda wahay oo amniga meesha sugan walaal waxa jira meel badan oo lagu dalxiis tago meeshan baadhaha waxa ku xisho waxa u imaadaan in la yiraahdo laandheero muuse marka banaan ku arkay horta oo raamola waxa ka cabsanaya cabsi oo ka kanada ku arkay muu ku dilays dhahay laakiin marka intii imaadeen in habi oo kula sheekaysaa oo dad jecel waxa waaye dadka la dhaqmi karo waxaan ka aaminsanaa nin horta markii wajigiisa aragto oo ka duwan yahay dadka kale kadib markii timihiisa raamo iyo waxaas uu sameeyay waa laga cabsan jiray hadda laakiin farqi weyn oo u dhaxeeyo markii waji ka waji asu arkaysiin iyo markii baraha bulshada ku arkaysid laandheero la markii ka arkeen magaalka oo social media marka ka arkeen dadka waxay nagu dhaayeen nin oo baalo dadka dilay waxaas ay naga aaminsanayeen marka hadda la imaan nin caadi bishaasho hadda arkabo nin aad u qurxoon oo ahaaba marka social media ka arkayeen waxaas dhaayeen ninkan wallahi billahi caadi dadka kala qala wallahi habigayga muxuu ahaa qof walba habigiisa waa la qaybsadaan qofkii farxad ila soo doonto farxad waa la qaybsadaan waxa uu aad u isticmaalaa baraha bulshada oo marar badan Facebook-giisa kula hadlo kumanaan ugu xiran waxa uu caan ku yahay wadoodaha shanta Soomaali hadda kama tirsan wax talisa balse sida uu sheegay waxa uu ka tirsanaa jiray guutadii 15aad ee ciidamada xoogga dalka dawladii Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Haajir Abduqaadir RTN TV Muqdisho.